nin hadda koor waxaa la yidhi isagoo riti wata yaa magaalo intuu riti keensaday inuu gatay iyo wuxuu rabay meel ayuu ku xirtay wax yaraa guri u dhow ayuu inuu biyo iyo wax ka soo qaatuu rabay midaaba intuu markiiba soo booday ritigii iska furtay oo iska kaxaystay ninkii markaa ritigiisii oo la sii kaxaysan uu ka soo dabooday war xageed riti u wadataa wariga leexo ritiga ma ritigaad u haysataa war ritigana iska leh aad iska maliide hadda inta ugu timide ritigayga isiiniyo waa wal isku booday wuxuu waxaan ku siinay mar ritigayga ayaad ugu haysataa dad meesha maraayay marka yuu kii ritiga furtay ee aan lahayn yaa wuxuu niman yahow maxaad arkayseen ritigan yaad ku aragteen adaan kugu aragnayn adaa wati laakiin meel uu ka soo furay miyaarkayn ayaga ma igu arkayseen inaan ritigan anigu wati oo ninkan ugu qabsaday haa intaas markhaati ma iga furi kartaan maxkamadda ayaan tagaayaa waan kaaga furi karnaa laba ka mid a dadkii uu kaxaystay maxkamaddii uu geeyey ninkiina maxkamaddii u raacay ritiga iska lahaa markaasaa wuxuu yidhi war maxaa isku haysataan maxkamaddii yaal waxaan isku haysanaa ritigan la isku haystaa hooye yaa iskale kii dambe wuxuu yidhi anaa iskale ritigan waxaan markhaatiigaa labada nin inaan anigu leeyahay ninkan aana igu haystay in layga qabta ayaan rabaa ninkii baa waxaa bal u kaadi war idinku maxaad arkayseen maxaa ritigan yaa iskale anagu ritigan ninkaan aan ku aragnay isagoo wata oo ninkan gadaal buu naga soo gaaray ritigin buu ninkii ku qabsaday buuq halkaasuu ka dhacay laakiin ninkana ritiga annagu aan ku aragnay oo wati garsoori meesha muuna sii baarin oo wax kale muuna raadinin muuqaalkii markaa u socday unbuu xukumay wuxuu ku yidhi waryaa ninkii ritiga iska lahaa halkan ka baxa xoole isama darto inaad qaadatay laba markhaati baa lahayaaye ritiga ninkaana iska leh wuu xukumay ritigiisoo u jeedaa lala dhaqaaqay marka ninkii wuxuu ku hadlu garan waaye waa laga xukumay soomaalaa ritigiisi markaasaa wuxuu yidhi ilaahay ma hadlo yani sida ninkan loo dulmiyey iyo sida miskiinnimo ay u hayso oo wax usoo dhiciy ritigiisi uusan jirin ilaahay buu isaga dirsaday shakwadiisa ilaahay ma hadlo ilaahay wuu hadli doonaa fiir adig kii ritigii la dhaqaaqay wuu kaxaysay wuu watay magaaladii uu kala baxay wax yar markuu sii waday ritigii unbaa madaxa intuu qabtay kii tuugga ahaa ee dulmiga ritiga ku qaatay ayuu kala jaray hal mar qalaf wuu dhintay kii ritigii oo meeshii taagan ninkii oo daba socday oo ritigiisa tartiibtiisu u qabsaday wuu kaxaystay marka waxaan ka wadaa qofku hadduu daalim yahay ilaahay ma hadlo aa imaanayso ilaahayna wuu hadlaayaa ilahay wuxuu ina dhahay walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu daalimuun marna ha u malaynin ilaahay inuu ilowsan yahay kuwa dulmiga samaynaya waxa ay samaynayaan ilaahay ma ilowsano laakiin dadkaa la isku imtixaamaya mogtahay waxaa la isku imtixaa wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruuna wa kaana rabbuka basiira waa laydinku isku imtixaamay ilaahayna wuu ujeedaa waxa la samaynaayo ilahay wuu ujeedaa marka buunka markii la afuufay waxaa waa dalika yowm lwaciid waa maalinta goodintu waxay tahay adduunyadani qur-aanku wuxuu tilmaamaya qofkii xumaan sameeya oo dadka dulmiya oo ku xadgudba maalin aan maanta ahayn ayaa la isxisaabin doonaa maantaasaa la isugu goodinayaa qofkii mu'mina marka qalbigiisa intay maalintaas ku weynaato yaa wuxuu le war maanta adduunya la joogaa berina waa aakharo ilahay maxaad la hortegaysaa midna intuu iloobo maalintaas yaa dhaldhalaalka yare adduunya maanta yaalla yaa intuu run u maleeyo yaa wax kastoo xumaana adduunyada daraaddeed ayuu u samaynayaa ha sameeyo maalinta way socotaa haddana maalin kalaa imaatay haddana sanadaa dhammaaday haddana sanad kalaa bilowday ugu dambaysta waxaa imaan doonta wa nufika fi suuri dalika yowm lwaciid waa maalinkii goodinta waxaa ilaahay u goodinaya marka qofkii maalan ama dadka dila qofkii maxay ahayd maalan ama zina gala qofkii ama shirki sameeya ilahay wuu u goodiyey qofkii qof kas u dila ilahay wuxuu ugu goodiyey naar inuu gelin doono oo ilahay wuxuu yidhi waman yaqtul mu'minan mutacamidan qofkii qof mu'mina kas u dila fajazaau abaalkiisu jahannamu waa jahannamu meesha uu gelaayo waa jahannamu khaalidan fiiha asagoo weliba ku waaraaya wa qadiba allaahu calayhi ilaahayna uu u cadhooday qofkaas walacanahu lacnadna wuu ku riday walahu cadaabun cadiimun cadaab weynna waa uu leeyahay soo goodi ma aha qof wuxuu dhihi karaa imisaan aragay dadka laynaysa oo haddana caadi iska joogta ee waxay u joogaan dalika yowmu lwaciidi ayaan la gaarin maalinkii goodiga lama gaarin maalin kalea la joogaa marka maalinta kale la jooga ee maanta yaa ha ku sirmin oo ha u malaynin hadday maanta waxooga isugu aadan tahay qofkii daalimka ahaa ee waa ka uu iska fiican yahay maa la qabto ha dhihin ina allaha la yumli lidaalimi qofka daalimka ilahay wuu u sugaa xataa idaa akhadahu laakiin markuu qabto daalimka marka la qabto lam yuflithu ma fakinaayo
قفك إلهي قبته قبشد إلهي داوع مله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلهي قبشديسو ويحنون بدنتهي قرمو قبن لكن وقت وصل دونو قبنايا نبي وحالويري فإما نذهبن بك حتى النبي وعليه كلا تقنو فإنا منهم منتقمون كل يكون كل بقى وانكعر سنينا أو نرينك الذي وعدناهم أما ذي وهو نقول هدان كنت السنة وحان أبلا قادنا أين ظالمين تلهلاقايو أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون وانا أودنا هذا وحال قاربا سامي يسنكوية لنم وحيابها دفكو أي سمين آيان فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم الدين إلهي وكوسو ديبي مدى أنكو دقنو ماكو حالنا قاربا دين تاني أنكو دقنانو دعوينك يحداث تدعايا وقفك حمان كالشقايا ذلك يوم الوعيد أي أودن بيسا مركا سامركي اللي قرطوه النار تلقلية وحالي دونا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون كلمة سحر با مسألة وحبار كيمين مركا سوحيدان سحرنا وحقيقان هرتاقنا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين إلا بأي النار تلسار دونا نار تاتا الشاكلة oo way soo socotaa wanaar ayaa jirta sheekada inuu waa yaa waxa imaan doonta isha in la saaro oo sida hadda waxyaalaha horteena yaala aan u arkayno kale naarti oo naar ah la tarawna al-jahim ayaa imaanaysa marka qof maalmo yar yar waxooga waxba ku sirmin ee jidka ku toosnaado diinta ku dhaqankeeda iyo ku hagaagsanaanteeda midaas lagu dhago waliba waqti aynu ku jirno oo dhibaatooyin ay dhacayaan qof walba waxa rabaa iimaankaaga inaad muujisato iimaankaaga inaad ilaashato iimaankaaga inaad kaysato nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay ummadan aakhirkeedo oo inaga aan ka midnahay akhir zamanka dhibaatooyin waaweyn inay ku dhici doonaan nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa maana soo safar la yaa asxaabtii oo harsanaysa yu isugu yeeray markaasay way soo imaadeen markaas wuxuu yiri nabi kasto oo ilaahay uu soo diro ummadiisa wixii khayran uu sheegi jiray wixii shar ahna uu uga digi jiray ummadiinan oo ummal muhammadiya ana fayoobideeda ama caafimaadkeeda bilowgeeda ayaa la yeelay oo sadrul islaam suu qiimo badnaa iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisii iyo khulafaa raashidiinkii iyo yani waj'ala ummadina waxa la caafiyatu fi awwaliha wa sayusibu aakhiraha aakhirkeeda waxa ku dhici doona ummadan aakhirkeeda waxa asiibi doona wa sayusibu aakhiraha balaa'un wa umurun tunkiruna balaayoyin iyo arrimo aan la yaabtaan ayaa ummadan ku dhici doona wayaadan waxa imaan doonto nabi sallallahu alayhi wasallam fitno ama dhibaato fitnadaas oo midba midii ka horeysay ay jilcinayso ama ay fuudeynayso qofka muuminka markuu uu dhex joogo markaas yaa wuxuu leeyahay midani waa midii aan ku halaagsami lahaa midan cid ka baxaysaba ma jirto thumma tankashif hadana way faydmaysaa wataji'u fitna hadana mid kala imaanaysa markaas wuxuu dhahayaa haadihi tani waati mala waati aan ku bixi lahaa تلوين السنة صلى الله عليه وسلم وحول مركا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة قفك ربين نارنا لغفقه جنة للجليو هذا يبقى تاس قبصته محل ييري ويموت طوال اسكر رباي فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة قفك ربين جنة للجليو نارنا لغفقه وحو سمينا فلتأتي منيته لمشهده سعوت ماده وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أسوى إلهي آخره ميسن إيمانك هذا إلى شو إلهي آخره أدقوا رميسا ديريها كوتي مادو ومدى إلهي كالا دحيس دادك مدى إلهي دحيسنا محان سمينينا تا إلهي قرانا لباتوينكم مركا يدعان دادك سيان الله دقنا مدقى الله دا يوح الصعودة يسيد عيد حقيا لك قلاب بل ماشي ليجي لها نبي صلى الله عليه وسلم فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه دادك هؤلاء مادو وحا أساقوا وجعلها إنا يدادكوا الله إمادان warku wuxuu ku dhamaalayba adu seed jeceshahay qof walba la weydiina seed jeceshahay waxa jeceshahay koow naftaada in lagu nabadgeliyo oo nabad aad ku noolaato maxaa kale oo jeceshahay xoolahaaga iyo maalkaaga in amaan lagu siiyo maxaa jeceshahay sharaftaada iyo cirdigaaga in aan lagu xadgudbin maxaa jeceshahay in lagu ixtiraamo oo aan lagu ihaaneynin maxaa yaani wixii adigu aad jeceshahay oo dhan ayaa waxa la rabaa dhinaca kale ee dadka ahna ayagana xaggaaga inay uga imaato ayaguna waxay jecel yihiin bimaana sida adigu aad u dhaqanto ayaad noqonaysaa haddaad si fiican u wanaagsan u dhaqanto dadkuna si fiican u wanaagsan ay kula dhaqmaayaan haddaad si xun u dhaqanto dadkuna si xun ay kula dhaqmaayaan
sidaas daraadeed qof walba waxaad isku daydaa dowrka aad leedahay inuu noqdo dadka sida aad rabto inay kuula dhaqmaan adiguna dadka ula dhaqan dadka ha dilin dadka xoolahooda ha dhicin dadka ha ku xadgudbin dadka ha caayin hadal xumada iska daa yani sida adigu aad jeceshahay in lagula dhaqmo dadka ula dhaqan caamil innaasa kamaa tuxibu an yucaamiluuk dadka ula dhaqan saa jeceshahay inay kuula dhaqmaan oo fii qaacidada uu nabigana siinaya qurux badnideeda iyo sida ay tahay iyo sida inaga dhibaato inoo hayso waxaasoo dhan ay ka imaanayaan in la gara marsan yahay tilmaamihii fiicnaa waxaan kaloo soo qaadanay markii daalika alyawmul ciidkaas iyo qiyaamahaas oo dadka sugaaya oo ilaahay uu yidhi qof kasta oo kibir badan oo mutakabir wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannam wayusqaa min maa'in sadiid taas loogu goodiyey waan ka soo baxnay ya waxaan waddankeenna maxaa mushkilada in haysata maxay tahay ilaan mushkila in haysatee xaggee laynaga haystaa laban baan u dhaxaynaa bes labadaan u dhaxayna waxay yihiin ummaddeenna oo waddankeenna jacaylkiisii iyo inay ayagu iska leeyihiin baan u haysaninba oo qof walba wuxuu u maleeyaa waddankan wuu hagaagi doonaa yaa hagaajin doona marka waa la hagaajin doonaa oo yaa hagaajinaya duul aynan garanaynin mala habeen saan u seexan unba waxaan sugaynaa cirka inay ka imaadaan dad kale oo aanan garanayn waxay yihiin oo subaxda ayagoo laamiyada taagan oo nabadda sugaaya subaxda in la soo tooso war xalay wixii dhacma maqasheen maya cirka ciidanna looga soo daadiyey oo meel walba waa nabad ma taasaan sugaynaa cirka wax inooga soo daadinayaa ha ka yaabin cirka waxa inooga soo imaani oo laynooga soo daadini oo ummad kale ah oo aan sugayno ma jirto yaa iskale waddankan marka innagaa iskale hagaajintiisa yaa laga rabaa innagaa laynaga rabaa inaan hagaajino laakiin haddii innagiiba aynan hagaajinaynin oo maxaa iga galay qof walba uu leeyahay oo la sugaayo waxa aynan garanaynin in intuu inoo imaado inoo hagaajiyo waxaan u baahnaa inaan dib isu muraajacayno meel kale oo aan wax ka sugayno innaga aan ahayn ma jirto